الله وبركاته. soo dhawaada daawadayaasha sharafta leh. muuqaalkana maanta waxaan ku arki doonnaa maryama bintu cimraan, nebi ciise hooyadii. ma waxay ahayd nebiyad mise addoon wanaagsan? sidee ayay u dhimatay maryama bintu cimraan? wuxuu ku yidhi malakulmawdka markuu nafta ka qaadayey? dhammaan su'aalaha iyo kuwo kaleba waxaan ugu jawaabi doonnaa muuqaalkani. haddii aad nagu cusub tahay daawade, gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. fiidiyogana laag saar, asxaabtaadana u sheergaray. الصديقة مريم بنت عمران العذراء، نبي عيسى hooyadii. waxaa lagu xusay qisadeeda aayado kala duwan oo ka mida qur'aanka kariimka, waxaana lagu magac daray suuraddan. maryama bintu cimraan waa haweenayda ugu fadliga badan dumarka. taasina waxaa u daliila qowlka eebbe subxaanahu wa tacaala uu yidhi: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. xus markay malaa'igtu ku yidhaahdeen maryama, ilaahay wuu ku doortay, wuuna ku dahiray, wuuna kaa doortay dumarka oo dhan. waxaana la wariyaa suubanaha naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee inuu yidhi: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. وإن فضل عائشة من النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ragga waxaa martabad sare ka gaaray in badan, balse waxaa dumarka martabad sare ka gaaray aasiya, haweenaydii fircawn iyo maryama bintu cimraan. fadliga caaisha dumarka kale ay dheer tahana waa sida uu boorashka ugu sarreeyo cuntooyinka kale. culimmada gobolkood ayaa waxay ku tegeen in maryamo ay tahay nebiyad ilaahay u waxyooday, iyagoo deliilsanaya in uu ilaahay magaceeda ku xusay qur'aanka kariimka, balse aan lagu xusin haweenay kale magaceeda. hase yeeshee qowlka ay ku tegeen jamhuurul culamaa ayaa ah in maryamo ay tahay addoon wanaagsan oo dahiran. wuxuuna ilaahay kitaabkiisa ku yidhi: malmasiixu ciisa bnu maryama ilaa rasuulun qad qalad min qablihi rusul wa ummuhu sidiiqa. oo micnaheedu ay tahay ciise bnu maryam waa rasuul ay ka horreeyeen rusul, hooyadiina waa sidiiqad ama hulley. haddii ay nebiyad ahaan lahaydna ilaahay wuu ku tilmaami lahaa. waxaa la wariyaa in maalin maalmaha ka mida iyadoo maryamo sooman u yimid malakulmawd. markaas ayuu salaamay. waxay tidhi maryama, ma i soo booqatay mise nafta ayaad iga qaadaysaa? wuxuu yidhi: nafta ayaa qaadi. maryama waxay tidhi: wax yar isug inta uu ka soo laabanayo wiilkaygii ciise. wuxuuna nebi ciise calayhi salaam u doonay hooyadii wax ay cunaan. wuxuu yidhi malakulmawd: ilaahay ima amrin in aan addoon wakhtigiisa ka dib dhigo. waxay tidhi maryama, haddaba haddii ay sidaas tahay arrintu, waxaan ku raali noqonayaa qadarta ilaahay. waxaana la sheegaa in ay goobtaasi ahayd dalka dimashik. waxayna jirtay 53 sano. allaahu aclam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون